السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت وعنا ونكسن داوده halka naga daawanayso waa channelka Wanaajiye TV oo aynu ku soo qaadano warbixino aan filayo asxaabta inay wax badan ay ka faa'iideen. Warbixinta maanta aan soo qaadanayo waxay tahay daawade toddoba wado oo lagu garto saaxiibka dhalanteedka ah. Waa toddoba wado. toddobada wada ayaad iga qabsanaysaa. Saaxiibtinimaduna waxay leedahay miisaan gaar ah, nolosha aadanaha qiimo gooni ah ayay ugu fadhidaa. Saaxiibka waxa uu noqon karaa qofka ugu horeeya ee aad agtiisa ku nafisto oo aad xasilooni iyo ammaan aad ku dareento. Waxa kale oo dhici karta in saaxiibtinimadu ay dhibaato badan ku horseedo. Waa marka aad aragto wajiga dhabta ah ee saaxiibkaaga u qarsoona. haddii aad aragto saaxiib aan mid rumaad ahayn, sida ugu dhaqsiyaha badan uga fogow si albaabada aad ugu furto saaxiibo rumaad oo nolosha horumarkeeda kaga qayb qaadan kara. sidaa daraadeed waxaa jira calaamado ay wadaagaan saaxiibada danaystayaasha ah oo haddii aad qof ku aragto ay tahay inaad fiiro gooni ah ka yeelato. kow, marka aad u baahan tahay ma helaysid. waa calaamada koobaad ee lagu garto saaxiibka rumaad. si joogto ah ayuu ku garab istaagaa, wuxuuna u raadiyaa faahfaahinta noloshaada, halka saaxiibka dhalanteedka ahna uu marmarsiyo ka dhigto wado kasta si uu markaasi ku garab istaagin. laba, waxaa ka mid ah waxa uu kula soo xiriiraa marka uu wax kaaga baahan yahay oo qura. saaxiibka dhalanteedka ahi waxa uu kula soo xiriiraa marka ay dani kaaga xiran tahay oo uu kaaga baahan yahay oo qura. daraasad arintani laga sameeyay ayaa sheegaysa in 70% noocyada saaxiibadu ay danaysi ay ku dhisan tahay, 30% oo qura ay tahay mid rumaad oo aan maslaxad gaar ah ku dhisnayn. saaxiibada rumaad si toos ah ay iskula xiriiraan iyagoo aan dan gaar ah iska lahayn. saddex, waxaa ku adagba inuu fikirkaaga u fahmo. saaxiibka dhalanteedka ahi waxaa ku adag inuu fahmo habka aad adiga u fikirto. markasta waxaad u baahan tahay inaad wax walba fahansiiso, si ka duwan saaxiibka rumaad oo markasta si wanaagsan u fahma sidaad u fikirayso. afar, waxaa ka mid ah markasta wuu iska jeclaysiyaa, runtana kuma sheego. saaxiibka dhalanteedka ahi wuxuu ku dadaalaa inuu iska jeclaysiiyo oo aanu runta kuu sheegin. dhaliil kasta oo aad leedahayna uusan kuu sheegin, halka saaxiibka rumaad uu markasta runta uu kuu sheegayo oo aanu danka lahayn in runta uu kuu sheegayo ay ku damqayso iyo in kale, maadaama uu maslaxadaada u ka talinayo. saaxiibka dhalanteedka ahi inuu dhibaatooyinkaaga uu dhageysto diyaar uma baahan. dhageysiga wanaagsan waa qayb ka mid ah nolosha oo ay ka mid tahay marka ay mushkiladii ku soo wajahdo waxa u baahan tahay inaad hesho saaxiib wanaagsan oo garabkaaga jooga oo si fiican ku dhageysta. haddii aad aragto inuu doonayo inuu mushkiladihiisa oo qura uu ku sheegto adiga aan waxba ka dhageysanaynin, waa calaamad muujinaysa inuuna saaxiibkaaga rumaad ahayn. ka eeg calaamada xaasinimo. inta badan dadka waa saaxiibo wanaagsan inta la wada siman yahay oo aan waxba la iskala dheerayn, laakiin marka aad guulo gaarto ayaa dadka qaar arkaysaa calaamada saaxiibtinimo iyo inay raali ka ahaynba guulaha aad gaartay. waxaad dareemaysaa sidii inay tartan kugula jiraan oo kaleeto. sidaa daraadeed iska ilaali saaxiibada noocaas oo kale ah. noloshaada culays mooyaane faa'iido uma lahan. 7, saaxiibkaaga rumaad sirtaada ma faafiyo. sirtaada dhan ma faafinayo. marka aad saaxiibka ku sirqasato oo sirta dhinaca saddexaad aad ka maqasho, ogow inaanu qofkaasi ahayn saaxiibkaaga rumaad. maxaa yeelay saaxiibada dhabta ahi sirahooda iskama faafiyaan. waayahay, waxaan filayaa inaan isla fahanay toddobadaas wado oo lagu garto saaxiibka dhalanteedka ah. waxaan filayaa asxaabta inaan isla fahanay. daawade qodobo kaleeto oo wax badan aad ka faa'iideysan ayaan idiin soo wadnaa. ee fadlan channelkan Wanaajiye TV subscribe noo saar si mar walba aad noola socoto. aad u mahadsantihiin.